haddaba waxaa jirto arrimo maskaxda diidaya iyo aqligana diidaya maskaxdii aqliga diidaya ayaa jirto arrintaas oo ah gabadhan ma ahan gabadh caata aniga oo kale gabadhan ma ahan gabar aan tabar lahayn ma ahan haddaba ma isweydiisay hotelka ay joogeen iyada iyo gabadha oo markaasi oo xilba la yiraahdo oo soo hadasha oo tiri badiyan ama ku dumaashadeena maalinta kale waxaan joognay meel kale aan joognay aan ku baashaleynay ma isweydiisay daawadayaal meel hotel ah ama hotel waxaan ka wadaa meel oo lagu baashalo sida hadda ay hoteelada oo kale meelaha oo restaurantiga oo kale ay jooga ama beerta banaadir meelahaas ay joogaan ba ka soo qabo haddaba meeshaas oo zaxmada ah ma isku weydiisay in gabar oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jirkaas iyo xoogaas siiyeen ma kula tahay in dhil lagu afduuban karo iyadoo meesha ay zaxma ay tahay haddaba ma kula tahay gabar saaxiibkeeda soo wacay oo dhehaysa mobilkeyga ii qabo iyo jaajarkeyga aniga hoos qof ii taagan waxa la dhihi karaa in gabadhaani markuu hore wiilka inay is arkaan ay rabtay okay waxay rabtay inay is arkaan waayahay way tagtay okay wiilkii wuxuu yiri meesha ma ku sheekaysanayna meel kale aan aadina soo bax ma dhihi weysi mobilkeyga ayaa markaasi kor ii saarana soo qaadana sidee mobil ah ay ku baxday haddii ay tahay in wiilka soo aragto ismarkii baawurkan ma kor leerin ila wiilkii waa soo dagi lahaa meeshii isku imaan lahaayeen haddii ay tahay in ay raacdo waxay dhihi lahayd sug ma ku raaci kari mobilkeyga ayaan gabar saaxiibtada ugu soo tagay mobilkey soo qaadana kadib ayaan israacina balse haddii ay dhacdo in arintan ay dhab ay tahay oo sax ay tahay gabadhan la afduubtay waxa laga tixraaci karaa mobilka gabadhan xilba la yiraahdo heesa qofka ugu dambeeyay ee soo wacay gabadhan iyo qofkii uu sheekeysanaysay saacadii ugu dambeeyay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أنتوا كحرن عمر أوسكار برو وأنا عمر أوسكار فلنا دكتور مركورس مخال كان كسجار وحاسي الصومالي إسلامي ولالتني من كعك عصنا يا إن أت مخال كان لا يجلسد بيت كان أتفلو نصوص سرتد سي عن مركز نوت للجلسد وكبر يا بليس أنت سنو سمع وياهي مالما هاني مسلسل كان سعودة أنيجا وريرسني وحروين تتكان والله وريرسني وحروين شلي خوين أنا بأهدي ما أنت صاحبت هذا الوسوع جي أوكي برامج كان هرتا أنا وحن أفهمه برامج برنجي صوبته قبل أنا هدلوسه gabadhan hada shay wajigeeda ima cajibinin oo wajigeeda kama muuqato wax muruga ah ama waxa oo fal oo markaasi masiibo ay ka naxday qof wajigiis amal ah ilma eka waayo wasi ay u hadlayso wasi iyada TikTok ay ku soo galeysay ee majaajilista ay ku ahday ay markaasi ku soo hadashay bal ka waran qof saaxiibtiisa qof kula socda hadii la afduubto hadalkaaga adi ahaan istijaabi sidoo noqon kara hadalkaaga sidoo noqon kara ma si serious caadi aniga hadda hadla u sheekanayaa oo hadal lahayd mise hadalkaaga waxa ka muuqan lahaa mid muruga ah in naxariis iyo cabsiba ku jirto ayuu noqon lahaa waayahay waxaan isweydiinaynaa sababta gabadhan loo afduubtay gabadhan oo soo sheegtay arintan soo sheegtay waxay tiri anigii badiya ka imaanay waa soo baashaalnay haddana meel kale aan tagnay oo lagu baashaalo meeshaas aan tagnay kadib waxay igu tiray qof baa banaanka ii taagan mobilkay iyo jaajarkay qabo qofkaas aan u tagaa okay ka soo qabo meesha ay joogaan waa meel hotel ah oo ama meel bulshada isku imaado lagu baashaalo okay meeshaas zaxmada ah iyo gabadhan weyn oo xoog Ilaahay siiyay iyo kiilooyinkeeda markaasi ay dhan yihiin 96 kiilo ama boqolka kiilo markaasi kilogram-keeda uu yahay ama zayskeeda uu yahay gabadhan san u xoog badan ma kula tahay in la afduuban karo waliba ma kula tahay meel zaxma ah in lagu afduuban karo oo bulshada dhan buuxdo tusaale waxa isdhehaysaa gabadhan waxa markaasi lagu aqliyaastay in baawurka ay soo gasho kadibna meel kale la aaday saas loo afduubtay
arrintaas wax ka sheegaa marka oo baabuurka tusaale wiilkaani ay rabtay inay kulmaan wiilkii wuxuu jiray walaalay meesha aan kulmeen baawura wadana ee nakeen soo bax okay baawurkii ayayba kortay qoftan waa qof weyn mobile ka soo tagtay ma dhihi karta miyaa wiilka saaxiibkeeda ah fadlan mobilkeyga saaxiibteeda uu soo tagay mobilkeyga soo qaadana waa israacina ma dhihi karta miyaa way dhihi kartaa sax ilaan wax oo iska easy way ilaan qof aad mobilka meel uu soo tagtay qof adigana oo ku wadaaya waxa leedahay okay mobilkeyga soo qaadana dib bixinaba oo inta aad rabin mobilkeyga soo qaadana isug ayaa dheeysa hadii soo laaban lahayd mobilkeeda ay qabsan lahayd bixi lahayd markaasi oo mobilka dansanaa lahaa waxay ahaa lahayd arintani mid kiis la tixraac kara ay ahaaleed laakiin hadda kiis la tixraac kara ma baahanba qoftan waa qof weyn baawurna lama geli karo ma la afduuban karo qoftan saa xoog badan ma baawur la geli kara aad ma afduuban kartaa qoftan meel oo zaxme ma afduuban kartaa ma loo afduuban karo ilaan ilmo yar ma nacnac lisinaayo oo kaal in soo gal dhahayo ama barta ku geena ama abba ku geena dugsiga ku geena cunug la lahaay ma ahan waa qof weyn oo way arag ah oo Kenya ku soo tababarat Kenya dadka ka imaado fujisto waayahay tusaale way badacdo arintani waa run meel ka fudud ayaa jirto oo ah qofka soo wacay mobilkeeda ayaa laga tixraaci karaa lambarka soo wacay wiilka balmiyay mobilkeeda gabadha xilba heesa ayaa markaas mobilkeeda laga tixraaci karaa taas waxa ku cad in effect waxa ku sheegaya arintan kiiskana booliska ma la gaarsiin badii booliska la gaarsiin lahay arinta way weynaan lahayd arinta di oo saldhig la geey lahay booliska ka soo hadal lahay arintan warbaahinta ka soo hadal lahayd laakiin waxa meesh ku cad in arintan ay tahay mid wareeris ah umada loogu talagalay in lagu wareeriyo viewsna lagu kacsado balse hadii ay dhacdo in arintan ay dhab ay tahay oo sax ay tahay gabadhan la afduubtay waxa laga tixraaci karaa mobilka gabadhan xilba la yiraahdo heesa qofka ugu dambeeyay soo wacay gabadhan iyo qofkii uu sheekeysanaysay saacadii ugu dambeeyay ayaa laga ogaan karaa si fududna ayaa loo soo qaban karaa qofka afduubtay dhibkan geystay haddaad fahantay ama haddaad wax ka fahantay commentiga noo sareeb page-kana follow noo sar oo like noo sar aad iyo aad ay tumaasantay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh